Assalaamu calaykum asxaabta. Maanta waxaan sharaxi doonaa filimka la yiraahdo John Q. Soo dhawaada. Bilowga filimku wuxuu ku bilaabmayaa gaari highway-ga socda oo gabadhi wado. Gaarigaas ayaa shil galaya, waxaana ku dhacaya gaari kale. Gabadhina shilka ay gashay ayay ku dhimanaysaa. Dhinaca kale, jilaaga filimka oo lagu magacaabo John Q iyo xaaskiisa Dennis ayaa waxa soo wajahaysa xaalad dhaqaale xumo kadib markii warshad uu ka shaqeeyo oo ku taala Chicago shaqo dhimis lagu sameeyay, taas oo salka ku haysa dhaqaale xumo dhammaan dalka oo dhan ka socota. Haddaba maalin axada gelinkeedii dambe wiilka iska dhaleen lamaanahani ayaa isagoo basket ciyaaraya xanuun la dhacaya, kadibna si degdeg ah ay cisbitaalka ula cararayaan kadib baaritaan iyo jeegareyn xaaladiisa caafimaad. Waxa labadan waalid ay ku wargelinayaan dhakhtarka qaabilsan wadna xanuunka Raymond iyo agaasimaha cisbitaalka Rebecca in wiilkan wadnihiisu ku guuldaraystay inuu la koro jirkiisa isla markaana uu weynaado. Xalka kaliya ee dhibaatadan meesha lagaga saari karana ay tahay in wadna kale loo geliyo si uu u badbaado. Haddaba nidaamka lacag bixinta ee qalliinkan ayaa ah mid aad u qaaliya, taasoo guud ahaan lacagta laga rabaa ay tahay $250,000. Waxa kale oo nidaamka lacag bixintu uu dhigaya in markiiba uu bixin karo $75,000, taas oo noqonaysa inuu 3 jeer kala bixiyo. Kadibna wiilka yar Michelle magaciisa lagu dari doono liiska dadka sugaya wadna tabaruca. Intaa kadib John Q wuxuu u sheegayaa inuu caymis ku jiro xagga shaqada ah, lacagtan halka laga dabari karo. Balse marka uu booqdo John Q xafiiskii uu ka shaqeynayay, waxa loo sheegayaa in laga saaray magaciisa iyo qaar kale badanba sababtoo ah nidaamkii caymiska ee shirkadda in wax laga bedelay. Sidaasaanay rajadii uu halka ka qabay god kaga dhacaysa. Isla markaana maadaama ahayn meel kale oo ay ka dabaraan, John iyo xaaskiisu waxay bilaabayaan inay ururiyaan lacagtaas oo ka sameynayaan inay iibiyaan agabkii qaaliga ah ee guriga u yaalay iyo waxyaabo kale oo badanba. Balse si kastay u dadaaleen, ururinta ay ururinayeen waxay kaliya ay kaafinaysaa 3 meelood oo meel lacagtii markaa laga maarmaanka ah ee looga baahnaa. Kadib markay soo buuxin kari waayaan lacagtii looga baahnaa, cisbitaalka waxa uu damcayaa inuu u diro wiilkii yara gurigiisa si uu halka ugu dhinto. Kadibna xaaska John oo cadha ka muuqato ayaa ku canaanaysa ninkeeda inuu go'aan gaadho, tallaabana qaado si ay u badbaadiyaan wiilkooda. Maadaama aanay jirin meel kale oo uu ka dabaro lacagta John, qori ayuu soo qaadanaya cisbitaalkan uu soo galaya, wuxuu afduubanaya dhammaan beeshankii iyo dadkii ku jiray cisbitaalka oo uu ku jiro dhakhtarkii wadnaha qalay. Waxaan wada xidhaya dhammaan goobihii laga soo galayay cisbitaalka. Kadibna cisbitaalka waxa imanaya ambalaasida qof xabad lagu dhuftay. Wada hadal badan ka bacdi John waxa uu ogolaanaya qofkan bukaanka ah in gudaha loo soo gudbiyo si loo daweeyo. Intaa kadib John waxa uu soo bandhigaya dalabaadkiisii iyo in liiska lagu daro inankiisa dadka sugaya wadnaha. Isagoo la hadlaya nin dhexdhexaadiya oo lagu magacaabo Frank, wuxuu u sheegayaa dadka u afduuban dhammaantood inaan midna waxba soo gaadhin. Dhexdhexaadiyuuna waxa uu ka codsanayaa John inuu istajiyo xanaaqiisana kantaroolo. Shaqaalihii kale ee uu adeegayay dadka bukaanka ah dhammaantood waxay iskugu imanayaan qolka emergency-ga, waxaana intooda badan taageerayaan John marka ay arkaan xaaladiisa, iyaga oo garowsan nidaam xumada dul hoganaysa daryeelka caafimaad ee Mareykanka. Waxaanu John galaya heshiis ah qaar ka mid ah lahaystayaasha inuu sii daayo, kadibna wiilkiisa magaciisa liiska lagu daro sugayaasha wadnaha. Isla saacad gudaheedna mid ka mid ah lahaystayaasha ayaa buuq iyo muran bilaabaya, isagoo gacan iyo taageero ka helaya gabadha uu la sheekaysto. Balse waxa ka hor imanaya lahaystayaashii kale oo John taageeraya. Kadibna John waxa uu sii deynayaa lamaanaha mustaqbalka ee Stephen iyo Maryam iyo Rose oo ah hooyo soo galatiya iyo ilmo yaray wadato. Dhanka kale, ninkii dhexdhexaadiyaha iyo shakhsi kale oo mas'uul ah oo lagu magacaabo Bayne waxay la kulmayaan xaaskii John iyaga oo u sharxaya xaaladdu siday u cakiran tahay. Marka mas'uulka Bayne uu u sheegay xaaskii John in qalliinka la samayn doono lana badbaadin doono wiilkooda, taa beddelkeedana xaaskii John waxay ku raacaysaa inay ninkeeda la hadasho. Si kastaba ha ahaatee, taliyaha ciidanka booliska uu ka soo horjeedsanaya in loo fuliyo dalabka John, isaga oo ku andacoonaya dhabarjab iyo sumcad darro weyn inay ku keenayso ciidanka booliska haddii loo fuliyo heshiiskan John. Taa beddelkeedana wuxuu qorshihiisu yahay ciidamo gaar u tababaran inuu cisbitaalka geliyo, iyada oo ay dhex marayaan dhuunta hawada cisbitaalku ka qaato, iyaga oo adeegsanaya John xaaskiisu inay dejiso telefoonkana kala hadasho, kadibna goobta uu telefoonka kaga hadlayo laga soo toogto, halkaana lagu dilo. Hadda John wuxuu ka wareysanaya xaaskiisa xaaladda wiilkooda iyo in liiskii la geliyay magaciisa, waxayna u sheegaysaa inuu aad u sii xumaatay xaaladda wiilkooda. Isla daqiiqadahaasna waxa meesha ugu habboon ee laga toogan karo soo galaya qofkii toogan lahaa John, channelka TV-ga ee la yiraahdo Ad News Anchor oo si qarsoodiya u sii deynaya wararka ku saabsan cisbitaalka iyo lahaystayaasha xaalkooda, ayaa waxa jabsanaya qaar ka mid ah dadweynaha. Kadibna waxa si live looga daawanaya oo looga sii deynaya John iyo xaaskiisu waxay ku wada hadlayaan iyo xaqiiqda dhabta ah. Marka uu John soo gabagabeeyo la hadalkii xaaskiisa, waxa TV-gii la jabsaday ka soo muuqanaya ninka tooganaya John. Taasina waxay ka cadhaysinaysaa dadweynihii. Buuq iyo fooda ayaana ka bilaabmaysa cisbitaalka dabadiisa.
dibaddiisa iyo gudihiisaba. Toogashadiina John dhaawac fudud ayaa ka soo gaadhaya garabka, inkastoo warar beena ay boolisku leeyihiin wuu dhintay. wax yar kadibna ninkii soo tooganayay ayaa ruufka sare ee aqalka ayaa la soo dumaya, kadibna John ayaa si cadho leh u soo jiidaya waanu garaacaya. kadibna dadweynihii cadhadoodii ayaa cadho ugu sii darsamaysa markay ogaadaan isku dayga fashilmay ee lagu dilayay John. haddaba booliska ayaa ogaanaya in dadweynuhu la socdaan wax kasta oo dhacaya iyo fashilkan ku yimi, waxaana askarti xoog ku galayaan TV-gii la jabsaday halkaas oo ay ku hakinayaan. dhanka kale mas'uulkii Bayne waxa uu gudbiyey magaca Michelle si loogu daro liiska sugayaasha xubnaha. John isagoo gaashaan ka dhiganaya iskala horreysiinaya askarigii uu haystay ayaa wuxuu u baxaya dibadda, halkaasoo kumanaan askari qoryaha ay ku soo fiiqayaan, iyagoo dadweynuhuna taageeraya gadoodna ka muujinaya isku daygii fashilme ee lagu dili lahaa John. wuxuu dalbanayaa in wiilkiisa loo soo gudbiyo qolka gargaarka degdega si qalliinka loogu sameeyo. booliskuna way aqbalayaan iyagoo kaga xaal marinaya toogashadii fashilmatay. marka uu wiilkii yara soo gaadho John waxa uu sheegayaa dadkii uu haystay inuu doonayo inuu isdilo si wadnaha loogu geliyo wiilkiisa, waxaanu ku qancinayaa dhakhtarkii qalliinka sameynayay inuu sidaa ku hawlgalo. John waxa uu sheegayaa inaanu noqon doonin aabbihii goddigi lahaa wiilkiisa ee wiilkiisu isaga uu goddigi doono oo uu aasi doono. laba shaqsi oo ka mid ah la haystayaashii ayaa markhaatiga u gelaya, iyaga oo dhagaysanaya dardaarankiisii ugu dambeeyey iyo macasalaameyntiisii uu inankiisa la sii sameynayay. marka qolka qalliinka loo gudbo waxa uu rasaasta gelinaya qorigiisii, isaga oo u sheegaya hore inaanu qorigan rasaasi ku jirin, waayo muu doonayn inuu dadkan la haystayaasha dilo waxna gaadhsiiyo. cillad xagga qoriga ah ayaa rasaas aan ku talagal ahayn ka dhacaysa. John wuxuu mar kale u diyaar garoobaya inuu naftiisa jaro una hibeeyo wiilkiisa. iyadoo sida xaalku adag yahay ayaa xaaskii John oo murugteeda murug ka badatay waxay ogaanaysaa deeq bixiye xubintan wadnaha ah oo dhawaan dhintay. gabadhaas oo ahayd gabadhii shilka baabuur ku yimi bilowgii filimka, gabadhaas oo dhiiggeedu la nooc ahaa dhiigga wiilkan yar, ayaa hadda wadnaheedu soo gaadhaya cisbitaalka si loogu geliyo wiilkan yar. xaaskii John oo murug iyo farxad la ooyaysa ayaa ku cararaysa qolka qalliinka degdega ah si ay uga baajiso ninkeeda isdilaya uguna bushaarayso. isla marka uu wadnihii soo gaadho cisbitaalka John uu ka war helo, John waxa uu sii deenayaa dhammaan la haystayaashii, isaguna waxa uu xidhanayaa dharka dhakhtarka isagoo ka dheeraanaya in la xidho, isagoo damacsan inuu u taagnaado indhahana ka fiiriyo inta laga dhammaystirayo qalliinka lagu sameynayo wiilkiisa. keliya waxa arkaya oo dareemaya ninkii dhexdhexaadinayay isaga iyo askarta. markuu arko John oo ku labisan dharka caafimaadka wuxuuna u ogolaanayaa inuu goobjoogo ka sii ahaado qalliinka wiilkiisa. marka qalliinkii wiilkiisa loo sameynayay uu guul ku dhammaado, ciidanka ayuu isku dhiibaya, kadibna xabsiga ayaa loo taxaabaya. wixii intaa ka dambeeyana dood qaran ayaa bilaabmaysa oo ku saabsan helitaanka caymiska iyo daryeel caafimaad oo buuxa. maxkamadaynta John dhammaan dadkii la haystayaasha u ahaan jiray ayaa ka markhaati kacaya arrintiisa iyaga oo taageero la garab istaagaya. 3 bilood kadib xeerbeegtida ayaa ku soo oogaysa eedeymo isku day dil iyo faldambiyeed hubaysan, balse ugu dambeyn waxay ku xukumayaan eedeymo afduub iyo xadhig been abuur ah. tanna waxa aad uga xumaanaya qof kasta oo dadweynaha ka mid ah oo uu ku jiro wiilkii yaraa oo uu dhalay. xukunka saxda ee John wuxuu ahaa mid qarsoon oon la soo bandhigin. gabadhii looyarka u ahayd ayaa odhanaysa John xukunkiisu marnaba kama badan doono 5 sano, iyada oo ballan qaadaysa dadaalkeeda ugu badan inay gelin doonto sidii ay u yarayn lahayd xukunka John. gunaanadka filimkuna wuxuu noqonayaa John oo loo sii wado xabsiga si uu u sugo xukunkiisa, iyo wiilkii yaraa oo dhalay oo ugu mahadnaqaya aabbihii halganka iyo geesinimada uu u galay si uu u badbaadiyo, isla markaana sheedda ka salaameynaya. faldan asxaabta waxaan idinku codsanaynaa inaad muuqaalada like saartaan, waayo lacag idinku qori mayso. haddiiba aad tahay daawadeen nagu soo biiray, faldan subscribe si